بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa khadar maxamed faarax laguna nays khadar biciid waxaan ka imid maamul goboleedka galmudug maalmahan waxaan marti ku ahayn caasimadda muqdisho annagoo marti u ahayn dallada bulshada rayidka ee sooshansa runtii waxaa farxad ii ahayd inaan ka mid noqdo ama aan noqdo xubin ku matalaysay shirkaas isaga iyo tababarkaas isaga ah bulshada galmudug kaasoo lagu tababarayay sidii loo gaarsiin lahaa bulshada qeybeeda kala duwan dib u eegista oo maaragtay dastuurka dardarteeda iyo xooggeeda maalmahan dambe uu socday waxaa aad iyo aad u soo ifbaxayo oo in doorkeeda la diyaariyay laga maarmaan noqotay in dastuurkii dhamaystirkiisa isla sanadkan insha allahu tacaala la maleynayo 2018 in la dhameeyo sidaas si lamida gudiyadii madaxa bannaanaa iyo guddigii ay ka koobnaa baarlamaanka labadiisa aqal iyo wasaaradda dastuurkaba waxa ay arkeen madaxda bulshada rayidka inay laga maarmaan tahay in la soo kordhiyo guddi kale oo task force oo shaqadooda ay noqonayso inay fududeeyaan howlaha inay gaarsiiyaan bulshada aan codkooda la maqli karaynin inay maaragtay ay xogtaasna ka soo gudbiyaan qolol meesha ka imaad wuxuu ahaa wax xiiso badan casharadii aan meesha ku qaadanay waxaa aad iyo aad ugu rajo weyn insha allahu tacaala haddaan gobolladii iyo meelihi ka imaana u laabano casharadiina loo siiyey qaabkii wax gudbinta qaabka event managementiga loo sameynayo qaabka maxaan ku dhaha haduu ilaahay ku reeyahay facilitationka loo sameynayo waxaasoo dhan annagoo cilmin u lahayn haddana in lagu refresh gareeyey aad iyo aadna xiiso badan u lahaayeen rajaynaynana insha allahu tacaala howshaas ayada ah hadday bilaabato in annagana aan rajadana laga maleynayo iyo ka xoog badan in la ilmaan doono insha allahu tacaala ugu dambeyn waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo hay-adda sooshansa bartamaha koonfurta soomaaliya ee bulshada rayidka hoggaanku ah iyo sidoo kale hay-adda bulshada rayidka ee puntland oo labaduba kolley abaabulkan iyo qabanqaabadan ayaka mas-uuliyaddeeda lahaa waana rajayn doonaa insha allahu tacaala sida aan u matalayno in doorkeeda aan soo muujin doono insha allah waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu